xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ayaa kulan xiiso badan maanta la dheeli doona Dhiggesa Uganda ciyaar qayb ka ah tartanka Jan Cup 2019 ciyaartan ayaa midii labaad ay wada ciyaarayaan labadan xul iyadoo kulankii ugu horeeyay oo ka dhacay dalka Djibouti ciyaarta ku soo dhamaatay 3 gool iyo 1 gool oo lagu adkaaday xulka Ocean Stars ee Soomaaliya wiilasha lagu naanayso Ocean Stars ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay tababarada ku qaadanayeen dalka Uganda ee ciyaartan ay ka dhici doonto xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ayaa kaliya waxa uu cutuma kulankan inay ka adkaadaan dhigooda Uganda waliba tiro goolal gaaraya 3 gool iyo bir maadaama kulanka hore loogu soo adkaa 3 gool iyo 1 gool galabtana waxa ay kaliya u baahan yihiin inay ugu adkaadaan 3 gool iyo bir ciyaartan ayaa mid aad u xiiso badan waxayna dhici doontaa 10 saac galabnimo ah waxayna ka dhici doontaa garoonka lagu magacaabo Xulka Stadium ee dhaca dalka Uganda Ocean Stars waxa sanadkan horkacaya macalinka reer Ghana ee Bashir Hayford kaasoo wax qabad muuqda ka sameeyay xulkeena kulanka ugu dambeeyay xulka waxay soo bandhigeen kubadda aad u qurux badan ee ku qancaan dhammaan taageerayaasha u soo daawasho tagay ciyaartaasi waxa kulankaasi u safnaa xidiga dhowr ah waxaana kamid ah xidigii u safnaa xulka Ocean Stars goolhayaha Mustafa Nakuja daafacyadu waxay kala ahaayeen Cabdiweli Cabdiraxmaan Maxamed Aawili Ayman Siid Ali Pana iyo Shiiqay qad kale waxay kala ahaayeen Ibrahim Cabdi Maxamed Rasta Umar Xaaji Bano Qaxtaani iyo ciyaaryahan kale Maalshine Faisal Xasan Xaashi Faisal Ahmed iyo Cabdimjiid ayaana u safnaa xulka qaranka Ocean Stars kulanka galabta waxa macquul ah inuu safkan wax iska bedelaan inkastoo kulanka hore keedka la dhigay kabtanka xulka qaranka Cabdicaziis Maxamed Atoosh waxaana macquul ah tahay galabta in lagu soo bilaabo isagoo calaamada xushmada ee xulka qaranka Ocean Stars xulka qaranka ayaana waxa u muuqda kaliya inay guulka gaaraan dhigooda Uganda oo la xasuustaba in tartankii 17 sano jirada guul xalli ka soo gaareen xulka Soomaaliya ciyaartaas waxay ku soo dhamaatay 1 gool iyo bir ciyaar ka tirsan tartanka bariga bartamaha Afrika ee ka dhaceysay dalka Burundi 17 sano jirada Uganda ayaa lagu adkaaday 1 gool iyo bir taas oo ay xasuustaan xulkeena ayana galabta macquul ay tahay in iska dhaqaan guul daradii ka soo gaartay kulankii hore ee ka dhacay dalka Djibouti